وحوي إلا كنسل قرية الدولة كنسل قريسة فدمة عيسى حير عيسى ما هو فدمة عيسى وإلا كنسل قرية كان أدعي مايو بشاء الله تعالى أنا كان نحينا أنا كان نحينا إنك هو صنعنا إنك هو جبني إنك ميل هو سيحني إنك هو عني يا ولا جاك شعر وحدات قوليستي وأنا قوليستي يا ساسا صاحب كل رفيقه وحير كان حير معها عيسى وتيه وحير سياسة ليسن وسومالنا للدونيو إن وح سومال هجرينه لا إن قايبيه وإن عيدك ميليتريا لقى سو صارا مقالة بورمي ولقيا حدودا للهناي جيبوتي عدو إنه وحن وإنه خطر سنة وكا أبقالك خطر سنة وإسماعيل عمر قيلي نيكا دوال وحن كولا يلي لو بحا دولكا الدكتان الدكتان دادكا رير سومالان waxa ula baxdaan Guban State oo laga tagay Awal State Guban State ila maray dhalinyarta la xilxilay caawa soo daaya biidnaha karim saddex saa u soo daayeen xarig xumo taro xeer isku dilmayno xeer lama diidana laakiin waxa la diiday meesha ay balaa ay ka taagto la isku raacsaneen laguma adkaysto waxaan leeyahay madaxweynaha bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam marka hore ilaahay ma hadli subxaanahu wa tacaala ilaahayga nimcooyinka badanaysay ayaa mahad leh waxaana huba haddeen shukriga badino ilaahay inooga badin doono haddaynu isjeclaano ilaahay inooga badin doono waxaan caawa isoo kiciyey waxa weeye fariimo badan baa yimi oo dibadda iyo gudaha especially gudaha Boorame iga yimi awdal leeyahay Faysalow maanta oo maalintaadii dadka kala qabo hadal waxa weeye aniga iyo dawal isku kala tiriyay Booramo waa madiinatu salaam gaar salaam waa taw bixina bari nabadi in aan saaxiibna oo Mareykan jooga ayaa wuxuu yiraahdaa Soomaaliland waxa ku noqotay si nabi ummadiisa ku noqday أصلاً وارن لكن ولي أنا اللي قوم أمرين سينا بنوح إنا كهاجرو إن شاء الله كان هاجر ما يكند من معيو إلا أن أركز سومالان بلنت العروتة وقاضي هاد قرن ما يدين سمين يا برف بنت كتير إلا إيرومية سبحانه وتعالى ما أنت واحد لا هاي مركو رئيساء دتكي إنا قد انتي shaqooyinkaas ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu jannada ka waraabiyo ehelkoodii inaga samir iyo inaga siiyo maanta dhalinyarteenu waxay naga sugayeen barwaaqo iyo shaqo iyo amni xabad nagama fileen inta dhaawacdan waxaa leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhaqsa ilaahay dhaawac ha siiyo ha bogsiiyo dhiigana هكذا لح جرابنا وأنا أجينا ديك بدن شو تاني بايشة وحي وحن سبي أبيض وحين ديك وصار شو بهبل شريت أمريكا بعدي كنت نقف بعدي الجروبي بس كنت بنتي وحنا أرنتن آمنت أن سوتش دينيو عطسي وحن أدري عطسي إنا يبون إلى قبطان إلهي خير هسيه مدحوينه هيني خير قبي داير ريالي ما انتو حيلي وكوريجي وكل مياه دل إيا ضد ما قاعد إسكتية وحانو يلي سومالا وحو أبتري وبانه وحو أبتري وبانه لابد ما انتو يتاقنت ثلاثة لما قادم وحكالو نسنا أنو أبي القرينية صاحبكي walaalkay cabdiraxmaan cali oo nowsawo si family friends aan nahay ila mujaahidka ila kharsiye iyo madaxweyne ku-xigeenkiisna cabdiraxmaan saylici iyo saaxiibkay ilaahay kharsiye
sheekheennii qaranka sheekh cabdilaahi sheekh jawhar oo nabadii berigay 94 igala shaqeeyey iyo ilaahay khayr siiye professor Saleeman Guuleed aabihii tacliinta sare ee Somaliland oo isna naga soo raacay Addis Ababa oo nabadii nala qabtay. maanta waa maalinteeni waxaan soo jeedinayaa afar qodob anuu horaan u sheegay oo idiin sheegay oon idhi xeerka ciise waa xeer fidmo wuxuu la mid yahay gala dagaalkii lagu soo daayey laascaanood haddaynu ka hortegina khasaarada un arki doona baan idhi. horta tii baa jirta oo xeerkani xeer maaha ciise watee waa xeere siyaasadeysan oo Somaliland la doonayo inaan wax Soomaaliya jirinoo la ina qaybiyo. hore waan waxaan ku yidhi waar aylafayn Somaliland iyo aniga waa nagu soo tashaday ee anigu aniga hangoolkii sitay Somaliland halo waxay si loo badbaadin lahaa halaga tashada baan ku yidhi wax kale oo dhan iska dhigo yaani riyadaas aanay nagu dhawoobay ma yidhi waa lagama hoos qaadin. ragga waxaan leeyahay talooyinka ila xoojiya kow waa in ciidanka militariga laga soo saaraa magaalada Boorame oo la geeyaa xuduudan la leenahay Jabuuti cadowga inuu xun oo inuu khatarsani oo ka abgaal ka khatarsani waa Ismaaciil Umar Geele. ninka dabada waxaan ka wadaa ay yiri la baxa dhulka aad degtaan ee wada degtaan dadka reer Somaliland waxa ula baxdaan Guban State oo laga tagay Awdal State Guban State ila maray halka xadka la geeyo. waxaan kale oo sheegaynaa dhalinyarta waxaan leeyahay saaxiibayaal waa mustaqbalkeena waxaan ku ciyaaraysaa waxaad burburinaysaan oo waxaan dhisanay ay tacabkiin ku dhisateen shisheeyeen mu dhisan tacabkiina lagu dhisay xaq baa u leeyihiin inaad muujisaan dareenkiina laakiin isku soo bax nabadgelyo ah oo wanaagsan oo sheeganaysaan yani dulmiga aad ka tagan waa dulmi inaad samaysaan. saddex waxa weeye in la kansal gareeya dowladdu kansal gareysaa fidmo ciise xeer ciise maaha waa fidmo ciise waa in la kansal gareeya kana dhici maayo insha allahu tacaala. waxaan ka codsanayaa dowladda madaxweynaha specially madaxweynuhu xilku adigu ku saaran yahay president systemku waa madaxweyne muxuu yiri dhalinyarta la xilxilin caawa soo daaya biidnaha kariim si dhaqsaa u soo daaya xadhiga xumo taro waqti caynkaas oo taagan tahay qofka dhalinyarta ka shakidaan u caqli celiya laakiin xabsi xumo taro marka halkaa gaadho soo daaya ma lahay insha allahu tacaala xidigtii Jarmalka ugu soo horeysay iyo gruubkeedaba soo wada daaya iisow waxaan ka codsanayaa dad walaaleenahay uma baanin maanta Soomaali inaga isku ugu fiicneen inagu haddeen reer Somaliland nahay family bay nahay family hoggaan weynay nahay inaga joojiya xeer isku dilmayno xeer lama diidana laakiin waxa la diiday meesha ay balaa ay ka taagto la isku raacsaneen laguma adkaysto warboor ma keena ma yiri war Hargeysa keena ma yiri aan la sameynay joojiya waan leeyahay inaad waxa dhimanaya waa inaabtiyaashiin waa habdagaashiin waa abtaa dadka abtaa waa hay'ad ma isku dhimanaya cid kale isku dhimanayso joojiya. shan waxa weeye aniga iyo madaxweyne Cabdiraxmaan dawal soo kay tiraya inta telefoon igu soo dhacaysa ila dawal waa saaxiibkaay waa rafiiq waa saaxiibkaay waa ardii la hadal haddana waan ku celiyo mar afraadki saaxiib waxaan ka codsanayaa waa mar afraadki shir degdeg ah oo tashi qarana inaad ku qabata shir degdeg ah balaa waxa leedahay madax la qabtay daba la qabta male khasaaro intaan ku ekaado khasaaro
waxaan ii sheegayaa dadkan maanta dhaawacay dadka dhintay dadkeenu ma dilin waxaa laynoo soo raacay huwan baa inoo soo dhex raacday snibers ayaa inagu dhex jira waa tabtii laascaanood waa tan ka digayey ee lahaa warboorme hadday shaqaaqa ka dhacdo soo baxo islaahaan ciidamada joojiya waa nolol dhex raacin doonaa tiibaa maanta jirta waa laynoo dhex raaciyey waa kaa durbaimaka in qorshaan u sameynaa kuwa soomaali baabiyey ee waxba samaysan kari waayay waxaan xasuustaa 94 ayaa anagoo kanada ku sameynaa Somali study nin professor Caruuse la oran jiray oo habar gidiraha ayaa wuxuu igu yiri Faysal Soomaaliya la isku keeno waxaan war Soomaali kala tagtay Soomaali baabiyey waxaad yeelaysaan hawiye horta heshiisii wixii hawiye heshiisii ashiya Soomaali heshiisa ka dhow waxaad yeelaysaan degmooyinkiina nabad ka samee ya maamul wixii degmaha hawiye maamul laga sameeyo waxa ka dhow Soomaali maamul loo sameeyo nimankii wada 5 sano Soomaali baabiyo magaceeni wadiga arka maanta wadiga arka magacee Soomaali inuu cirka ageyna hadana reer Soomaaliland laynagu ixtiraam jiray waa taa maanta Mareykanka adduunka oo dhan leeyahay Soomaaliya laga saaro lana oran kar maaye waa kuwiina qaribay walaweyntiina qaribtay ee dalkii isku tasarabada isku tasarabay baabisay ee musaqa waxa horan u shaxay waa Nigerian af Soomaali bartay ayaa maanta magaciinaysa oo baabiyay wal Soomaali meel ku soo hiratayno ahayn adduunka meel ku soo rito aha model baynu ahayn Soomaaliyeed hala soo celiyo waxaan ilaahay talooyinka aan sameeyay ilaahayna waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala ilaahayna sulxa igu soo astura ragaan magacaabay na waxaan leeyahay ka kaca madaxweynaha ka soo kac waxaan ku arkay adoo xalayta la fadhiya musabix bal eega ilaahay baan ku dhaariyay muddo isbuuc gudaheeda week gudaheeda ayaynu from Christ to Christ galay waxaanu galay ninkii yaraa ee inoo sameeyay adoogeena documentary xasuuq oo aynu sameynin intu xawaala taswiiray yiri wata xasuuq 140 madaxa laga tukaday baariga waa lagu tukaday ee halkeena ku sheegay halgan xabashi wado ayaa loo dhigay xaflad waliba waxaan caadi ahayn $250 ku soo galay tii waxay ugu xisay fidmo inoo tii la yaabsan ayaa hadana madaxweynaha musabix oo dhoofiya la rasaasay inoo tii la yaabsan oo qaar balaamicna ah oo umamada iska qaatay oo magacii suldaannimo iyo caaqile baabiyey halka dawladda ka canaan lahaayeen reerka garxaj sayra yiri waa inoo dagaal waxa wax ku halaysa ma aragta garxaj ma eerbool ku xukuma dawlad baa xukuntay horta halkaas inoo marina ayaa hadana fidnada halayto khayr mu sheegin fidna buu ninkii xalayta ku dhawaaqay dhibaatada xalayta ku dhawaaqay inkaar buu kurtay waana ka muuqan fidmada maanta dad ku dhintay ninkii xalay ku dhawaaqay loo soo dhiibay hadalka xun waa la iska celiyaa laguma hadlo marka waxaan leeyahay ilaahay beerkeena ha isku mariyo bog ilaahay qulubteena ha isiyo hala isjeclaado riximka la soo celiyo yaana noqonin sidii yahuudi intuu ilaahay ka badbaadiyay fircoon dibiga caabiday inagoo ilaahay naga badbaadiyay maxamed siyaaro la mid aha ayaynu qabiil caabudnay waynu ka tagnay balanteena ilaahay la galay inaan laa ilaaha illa muhammad rasuulullah sharciga xukuno mid baan malmaluuqanay kiina waynu ka tagnay maanta sharci maanta ku shaqeyna ma jirto waxaan leeyahay madaxweynaha hore waan ku sheegay Soomaaliland yani gacantaada ku dhiman oo dad kale adoo ka daacada yaanay dad kale magacaaga ku baabiinin anaga ka naxayna anaga ka naxayna inaga wada soo nooleen inaga wada jabnay inaga meel wada seexnay inaga wada cunay ya walaagaaga jecel waxaad guuleystay waana guuleystay ya saasan saaxiibku leeyahay rafiiqow ka kac
seefta la baxa maalin horan ku yidhi ya saasaan idinku ducaynayaa ilaahay subxana wataala inaga aqbalo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabad ku seexdo nabad ku soo toosta reer booramo insha allahu tacaala